waa sax cadeen dhab ah ayaa maanta kula wadaagi doona application-ka loo yaqaano Real Research lacagaha ku siin doono waa TNC lacagda loo yaqaano ayaa ku siin doona lacagda igu jirto aniga sidaad ugu jeedaan $1 iyo 3 senti anigoo wax hool aan qabanin marka waxyaabaha loo baahan yahay inaad sameeyto lacag ayaa ah markii koowaad aad isku diiwaan geliso haddii aad raacdo affiliate linkiga aan ku siin doono waad heli doontaa 50 senti ama $0 sidaad ugu jeedaan halkii mar aniga aan isdiiwaan geliyay waxaan la isiiyay 500 oo TNC ah lacag ahaan haddii loo eliyo waxay u dhiqantaa $0 mar walba lacagdan korna waa u kici kartaa hoosna waa u soo dhici kartaa maanta muuqaalkan ayaan ku gul wadaagi doonaa lacagdan markii aad isku diiwaan geliso hore aad kala bixi kartaa haddii aad rabto saaxiibada aad u share gareyn kartaa ku dhawaad haddii aad u share gareyso 50 qof waxa leedahay $25 haddii aad u share gareyso 100 qofna waxaad heli doontaa $50 maanta muuqaalkaas ayaan ku gul wadaagi doonaa waxaanu leeyahay qeybo service lagu shaqeystoona uu leeyahay waa cadeen dhab ah lacagdaadan aad kula bixi karto exchange kula bixiso aad bedelinayso lacagda dhinaca aad rabto ayaad u rugun kartaa maanta muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa marka si xishmad ah muuqaalkan haddii aad ka heshay like noo saar noo share garay si saaxiibo badan u gaaro haddii aad tahay qof nagu cusubana subscribe noo saar si aad u noqoto qof online ka waxyaabo badan oo ku ogaado maxasinidiin marka muuqaalkan ayaan gudagali doonaa marka koowaad waxyaabaha aan idin faahfaahin doono ayaa ah sida la iskaga diiwaan geliyo appka Real Research aad u noqon lahayd oo isku diiwaan geliye marka adiga aad isku diiwaan geliso u heli lahayd $0 ama 500 TNC loo yaqaano lacagda crypto-da ah marka koowaad waxaad u baahan tahay linkiga hoose ee description-ka ama comment-ka koowaad ayaad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufto application-ka ay la soo degayso waa midkan aad u jeedaan marka application-ka la soo degdaan application-ka ay soo kicinaysaa mise open ay dhexaysaa marka adiga aad application-ka soo kiciso marka waxyaabaha lagu baahan yahay inaad sameeyso ayaa ah marka adiga imaado qaab iskagu diiwaan geliyo halkan ay ku faahfaahin doonaa marka application-ka haddii aad la soo degto oo soo gasho san ay ku soo saari doonaan dhinaca ayaad u leeyahinaysaa start ay leedahay marka adiga start aas dhahdo waxa leedahay sign up meesha ay qoran tahay marka haddii aad sign up dhahdo waxaad doonaysaa inaad isku diiwaan geliso haddii aad tahay qof oo u baahan in isku diiwaan geliyo waxa leedahay sign up marka adiga sign up aad soo dhahdo waxaad gelin doontaa meeshan email address kaga ayaad gelin doontaa oo gmail-da aad isticmaasho ah email address ayaa marka halkan gelin doona haddii meesha kore oo emailka saas u soo geliso meesha hoos ah password ku qoran ayadna waxa loo baahan yahay in aan gelino password ku kooban xarfo capital ah iyo xarfo small ah lambaro iyo kuwa dhibciidan oo halkaas ugu jeedaan oo simboladaas ah ayaad ku dareysaa marka xarfo waaweyn iyo xarfo yar yar iyo lambaro iyo waxa loo baahan yahay inay ku jiraan dhibco oo calaamadooyin ah adiga aad aqoonsan doonto marka midkan haddii aad saan u qorto marka waxaad imaanaysaa midka hoose oo ku qoran confirm password oo xaqiijinta ah midka adiga kor soo gelisay ayaad halkan gelin doontaa oo ku koobanaa lambarada iyo magacyada oo qaar ka mid ah capital ahaayeen kuwan small ahaayeen iyo dhibaxan ku kooban ayaad halkan gelin doontaa marka waxaa leedahay next meesha ku qoranta ayaad ku dhufan doontaa marka next dhahdo halkan ay ku keeni doonaa oo ah verification code marka saad ugu jeeda verification code send it to your email address marka emailkaada ayaa waxaa loo soo diray verification codekaas lambaro marka lambaradaas ayaa soo qaadi doonaa marka emailka ayaad raadinaysaa marka lambaradaas soo qaado meeshaas ayaad keeni doontaa marka lambaradaas ayaan soo raadinayna marka saaxiibayaal sidaad u jeedaan Real Research loo yaqaan waa sidaad u jeedaan Real Research verification code waa noo soo dirtay marka waa lambarkan yaro halkan yaalo marka isa koobi soo dhexnay marka waxaan imaanaynaa application-ka aan imaanaynaa waa midkan application-ka marka application-ka aan ku dhufanaynaa oo meeshan best aan ku leenahay lambaradii aan soo koobi gareynay marka waxaan leenahay next markii waxaan keenay halkan ah meesha sare waa country wadanka adiga joogdo ayaad gelin doontaa oo ah Soomaaliya way ku jirtaa lambarka mis country select country ay loo yaqaana wadanka adiga aad joogto ayaad gelin doontaa
midka hoos ana isaguna waxaad gelin doontaa lambarkaaga hormuud ah mise lambara walba aad isticmaasho aad gelin doontaa waxa leedahay meeshaas ku qoran tahay verified aad ku dhufan doontaa marka calaamadaha yaryar hoos ah ayagana waxaad saari doontaa tig ay saari doontaa dhamaantood si aad u aqbasho sharciyahooda sidaad u jeedaan marka waa noo soo dhacday SMS miskoodkii waa noo soo dhacay verified waan gelinay hoosna sharciyoodii waan aqbalnay saddexda meelood safe ayaan saarnay oo tigtii next ayaan leenahay marka waxaanu leeyahay login dib ayaan noo soo eliyay login ayaan dhaxinaa marka waxaan gelinaynaa emailkii marka koowaad aan ku sameynay iyo passwordka aan gelinaynaa login ayaan leenahay marka password iyo emailka aan gelino login ayaan leenahay marka login dhaxno marka halkan aynu keenay marka waxa loo baahan yahay 6 lambarood inaan ku xirno oo lambar 6 lambarood ku xirnaynaa 2 mar aan ku elinaynaa marka adig soo galayso si aad mar walba ay ku weydiin doona aad soo galayso marka 6 lambarood aad ku xiran doontaa lambarkaada waxa ahaade intaas ay gelinay marka ayna waan sugi doonaa marka halkan aynu keenay mail ayaan leenahay mail iyo family waanu waxaan nahay mail marka halkan aynu keenay ayadana waxaan ku dooran doonaa meesha kuraasad u jeedaan waa Soomaali meesha kale waxaad u jeedaan select your nationality waa wadanka adiga aad joogto ayaan weydiiyay marka waxaan dooranaynaa Soomaali marka meesha hoos premier language ku qoran ayadana waxaan gelin doonaa luqadda Ingiriiska ayaan gelin doonaa maadaama aanu fahmayno lahjada Ingiriiska ama luqadda adigna luqadda aad fahmi karto aad ku dooran doontaa anigu Ingiriis ayaan ku dooranaynaa marka continue English baleenahay meesha hoos ayadana luqadda aad u baahan tahay aad ku dooranaysaa laakiin aniga waxaan leeyahay dan baa leeyahay meesha hoos aymaanaya dan baa leeyahay marka waxaan sugi doonaa inuu ii soo furo akoonkaygii real research waa ii soo furay marka saaxiibayaal sidaad u jeedaan meeshana waa sarfeeyad aad ku shaqaysan karto waaye aad ku shaqaysan karto haddii aan imaano dhinac iyo weledkayga meeshaas hoos weledka haddii aan ku dhufto sidaad u jeedaan available balansiga aniga iigu jiro waa 49 senti TNC da iigu jirto waa 500 oo TNC marka linkigan aad isticmaasho aad heli kartaa marka 500 lacagda u dhiganto waa $0 marka lacagdan waa cryptocurrency mar kor ay u kacdaa marna hoos baa u soo dhacdaa marka waa asaas 49 hadda aad ogdahay lagu yaabo inay ku badato marna lagu yaabo inay hoos u soo marto waa lacag cryptocurrency marka waad fahmi kartaan saaxiibayaal sida marka lacagda loo soo dirsadona hadda aynu ku xijin doonaa anoo soo sameynayno Sunday oo lacagdana ay noo soo dhici doonto account kale aan kula soo bixi doonana muuqaalkan isla hadda ay daawan doonto marka si aad ula baxdo waxaad u baahan tahay application-ka loo yaqaano Hotbit ayaad u baahan tahay marka application-ka aad la soo degaysaa waad isku diiwaan gelinaysaa aniga hore aan isku diiwaan geliyay oo daban waxa muuqaal kuma diyaarin laakiin haddii aad u baahan tahay muuqaal aad soo sameyn doonaa marka adiga halkan imaado meeshan deposit qoranta aad ku dhufan doontaa deposit marka aad ku dhufato waad u jeedaan Bitcoin Ethereum lacagahan dhamaantood waa lacagaha cryptocurrency halkan bayaalan marka qaybta searching-ka ayaa waxa ku qori doonaa TNC waad u jeedaan lacagta aan qornay marka haddii aad mobilka aad haysato scam ayaad ku qaadi kartaa haddii kalena copy linkigan aad dhigi kartaa hal mobil haddii aad isticmaasho linkigan iyo code-kan aad soo copy gareyn doontaa marka waxaan imaan doonaa real research oo application-ka lacagta noogu jirtay marka application-kaas ayaan sugaynaa inta noogu soo kacayo marka noo soo kaco muuqaaladiis waxyaabahaas ay idin fahansin doona marka sidaad u jeedaan application-ka hadda ayaa noo soo kacay marka lacagda iigu jirtana waan eegi doonaa hal qof ayaa linkiga isku soo diiwaan geliyay markii koowaad aniga aan isku diiwaan geliyay nus ay iigu jiray hal qof kale ayaa linkiga isku soo diiwaan geliyay $1 iyo 3 senti ayaa hadda iigu jirtaa marka lacagdan ayaan rabaa qayb kamid in aan la baxo marka aan idin tuso si aad ula baxdo marka magaceeda aad ku dhufanaysaa midda hoos marka aad ku dhufto send iyo rafis ayaa leedahay ayada naftirkeeda waa lagu soo diri karaa waxna waad ku diri kartaa send ayaan ku dhufanay marka meeshaas kura waxaad gelin doontaa linkiga adig soo copy gareysay muuqaalkan aad ku arkaysay aan soo copy gareey aniga halkan geliyay meeshan amount lacagda aniga aan rabo in aan la baxo waa 200 ayaan geliyay oo lacagdan oo TNC marka waxaan soo copy gareyn doonaa code-kan aad u jeedaan copy leeyahay marka waa midkan sidoo copy soo dhahay application-ka ay ku soo laabtay sidoo meeshan hoos ay gelin doonaa waxaan leeyahay send marka meeshan ku qoranta aad ku dhufan doontaa waxyaabahan marka adig san u buuxido
meesha kor address aad geliso meesha hoos amount lacagda aad u baahan tahay inaad soo dirto aad geliso meeshan code aad dirto send aan leenahay meeshan xaqiijinta ayaan kasi doonay aan confirm lambarkii oo 6 lambar markii koowaad aan soo gelinay ay weydiin doona halkan aan gelin doona oo 6 lambarood aan soo gelinay marka aniga aan halkan geliyo sidaad u jeedaan waxaan leeyahay complete marka ogolaaw 10 waa v waaye marka waxa loo baahan yahay 190 oo NC inay ii tagto ay loo baahan yahay marka sidaad u jeedaan 10 waa v ahaan baa lagu jartay 190 TNC ayada ayaa marka waxa loo baahan yahay inay ii tagto akoonkaygi hotbait ay ii tagto marka loo baahan yahay waad u jeedaan 82 sent ay igu soo xirtay marka lacagtii qayb kamid ah ayaan ku bixiyay marka waxaan aadi doonaa application-kii dib ayaan u laabanaynaa marka waxaan eegi doonaa qaybta lacagta noo soo gali karto refresh baan leenahay markaan ku elinaynaa marka waan isla arki doonaa inta noo soo dhacdo iyo inta marka waad u jeedaan saaxiibayaal waa ii soo dhacday oo lacagteeda 0.04 waa ii soo dhacday oo halkan aad ugu jeedaan 190 TNC waa ii soo dhacday marka waayo lacagdan san ay u bixi kartaa website-kan tusaale ahaan lacagdan san ay u bixi kartaa application-kan aad isku diiwaan gelinaysaa haddii aad u baahan tahay application-kan dhexdiisa waxaad ku samayn kartaa exchange oo lacagdan TNC aad isku bedeli kartaa lacag kale aad ku soo bedelinaysaa si aad ula soo baxdo lacagdaasna meesha doonta ay u rugun kartaa marka waa sarfin kartaa marka waxaan u maleynayaa muuqaalkan in aad fahanteen marka haddii waxyaabaha qaar aad fahmi weysaan waan soo weydiin kartaan muuqaal ayaan ku soo diyaarinaynaa oo daban waxyaabo qaar ba lagu yaabo in aan ilaawno laakiin idinka haddii aad fahmi weysaan muuqaal ayaan ku soo diyaarinaynaa oo qaybta hoose ee comment-iga ayaa noogu soo jawaabi kartaan marka website-kan waxyaabaha ka fiican yahay cryptocurrency ay dhamaanteed ku jirta lacagdan waad bedelin kartaa waxaad u bedelin kartaa cryptocurrency intooda kale وبعدين واحد أسي بدلين كرتا perfectly واحد أسي بدلين كرتا EVC plus si doonta aad markaad u bedelin kartaa marka muuqaalkan halkan aan ku joojinaynaa marka haddii aad muuqaalkan ka heshay saaxiibadaada la sii wadaag linkigaagana saaxiibadaada u share garay si adagna lacag fiican commission fiican aad ugu hesho service-kan waad ku shaqaysan kartaa marka waxaan u maleynayaa inaad fahanteen muuqaalkan halkan aan ku joojinaynaa isku soo laabad wanaagsan asxaabta channelka Halbeeg Time